qaybta laba aad ilbidhiqsigii naxdinta lahaa. Isla markii ay indhahaygu qabteen bahalkii madow ee waddada dhex taagnaa, wadnuhu waa i joogsaday. Xawaaruhu wuxuu igu ahaa mid aad u sarreeya, iftiinka gaadhiguna wuxuu si toos ah ugu dhacay indhaha bahalkaas oo uu iftiimayay sidii laba dhuxul oo dab ah. Ma jirin wakhti aan ku fikiro. Haddii aan biriga brake si lama filaan ah u qabto, gaadhiga xamuulka ah ee culus waa uu gadoomayaa. Haddii aan dhinac u leexiyana, jidka dhinaciisu wuxuu ahaa dhul qalafsan oo godan. Wax kasta waxay ku dhaceen ilbidhiqsiyo gudahood. Xaaladdii ayaa isbeddeshay. Go'aankii adkaa, waxaan isku dayay inaan gaadhiga xakameeyo anigoo biriga tartiib u taabanaya, balse bahalkii ma dhaqaaqin. Wuxuu ahaa mid weyn oo aan weligay nuuciisa lagu arkin dhulka Ciraaq. Isku dhaca, markii aan u jirsaday dhowr mitir, bahalkii ayaa si lama filaan ah u soo qayliyey, qaylo dhuunta ruxaysa oo xataa ka kor martay guuxa mishiinka gaadhiga. Musiibada, si aanan u dilin noolahaas ayaan taayirka dhinac u yara leexiyey. Isla dhinacii kale ayuu gaadhigii u liicay. Maqalka biraha isxoqaya iyo muraayadaha jajabaya ayaa buuxiyey habeenkii dambe ee aamusnaa. Gaadhigii wuxuu ku dhacay dhinac ka mid ah waddada. Muddo daqiiqado ah ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah. Cabbaar kadib waxaan dareemay dhiig wejigayga ku soo qulqulaya iyo xanuun daran oo lugta ah. Markii aan isku dayay inaan albaabka riixo, waxaan maqlay sanqadh ka imaanaysa dibadda. Ma ahayn sanqadh dad, ee waxay ahayd neefsasho xoog leh oo ku dhow muraayadda jaban ee gaadhiga. Maxaa dhacay markii uu ninku isku dayay inuu dibadda uga soo baxo gaadhiga burburay? Bahalkii miyuu weli goobta joogaa mise wax kale ayaa soo muuqday?